Xiddiga khadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea Willian ayaa si jees-jees ah kaga hadlay wararka la xiriirinaya inuu ka tagayo kooxda kubadda cagta ee Chelsea suuqa bishan Janaayo. Willian ayaa lala xiriirinayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona suuqa bishan Janaayo, iyadoo kooxda reer Catalan ay soo bandhigtay dalab gaarsiisan 50 milyan oo euro iyo da'yarka reer Brazil ee Malcom. Laakiin ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Brazil ayaa kadib guushii ay ka gaareen kooxda Newcastle United waxa uu xaqiijiyay in mustaqbalkiisa uu weli dhex yaalo kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London ee Blues. Willian ayaa kadib markii ciyaartu soo idlaatay waxa uu shabakada BT Sport kala hadlay wararka la xiriirinaya kooxda kubadda cagta ee Barcelona, wuxuuna yidhi mustaqbalkeyga waa Chelsea, ma garanayo waxa aad ka hadlaysaan. Intaas kadib Maurizio Sarri ayaa waxa uu dhankiisa sheegay Willian aad ayuu muhiim inoogu yahay, waa ciyaaryahan fiican, waxaana qabaa buu yidhi in uu nala sii joogi doono halkan. Waxa aan qabaa in uu soo bandhigi karo waxa ugu fiican sababtoo ah awoodiisa waa heer sare, laakiin aad ayuu muhiim inoogu yahay. Sidaa darteed waxaan qabaa inaynan macquul ahayn inaan waayi doono bisha Janaayo, ayuu hadalkiisa ku soo koobay macalinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Maurizio Sarri.